عدكاغا دورو تدوينو عدكاغا سي تدوينو عدكاغا سي وعد ويا دوركني وعد ويا دوركني وعد ويا دوركني وعد بالغو دوسدا ورن وعد بالغو ديرسدا ورن وعد باكو ددالسي أقويان كاغا دورو تدوينو عدكاغا سي تدوينو عدكاغا سي شوي تبدي وجودها يرلو وذيه دتكي سويا هاي مقولا حسبي قلو ديقا روكتي أبو شوي تبدي وجودها يرلو وذيه دتكي سويا هاي مقولا دينتيو جعل عينا دالكينيو برو مركيسا مرنا دقن دبيو قبيلكم دورسني قبيلكم دورسني حسبنا إذا قوليستو كلمة ما تميليها نجيسو مرنيا انتي نهورتاغنيا انت صحافة باهنتا iga daawanaysa waxa weeyaan nimanta xisbiyada ku jira oo la leeyahay xisbiga cudurkii kaalinta saddexaad iska fariisan jiray oo maanta xisbiyada kama yeerana xisbiga cudurkii uu taagay Soomaa xisbiga uu taagay Soomaa Allahu akbar إلها يا لذين من يعتمر كل عروسة يا لذين كل رأي حسبية بخيانة بحاجة لنا تكفينا من حسبنا وغيرنا الصار يا حسبية وغيرنا بهذا خدمي لما تيجي معي حسبي يعود لما تيجي معي حسبي يعود سمعتوا على كابو شري فقيدون كراهيو فقيدين كراهيو علماء شري سوار السلام عليكم عدالة يا طريق قوعد ولا لا يروح حد يشيء إن علي دويته دعاية سوق الله
inoo geliyey oo cadawgeenna inoo geliyey musharaxeenna ana guddoomiyaha xusbiga injineer faysal cali waraabe waa musharax buuxa waa musharax u diyaara inuu dalka xukumo uu cadaalad ku xukumo walaalayaal warxumatashiilka warkiisa ha qaadanina hadduu suldaan yahay iyo hadduu afiishaar yahay midna ucid ma wadato ucid waxay wadataa dadweynaha somalilan bari ilaa galbeed walaalayaal ummadda xagga joogto waxaan u sheegaynaa maalin dhowto inuu lahaa faysal kulmiya ayuu la shaqeeyaa laakiin kulmiya ula shaqeeyaa ma aha waxaa jiraane cod buu naga doonayaa waa in adeerkeena kuwa inoo soo geliyey faysal wuxuu doonayaa inuu codkiisa siiyo muuse waxaa waxba kama jiraan muuse sidiisu musharaxiye faysalna sidiisu musharaxiye faysal codka inaga ayuu naga rabaa xaafadaheena oo keliya tamaahib somalilan oo daldal codka inagu naga rabaa bari ilaa galbeed somalilan waxaa mudan karaa waxa weeye faysal cali waraabe ummaddana waxaynu weydiinayaa ilaahay ilankiisa kaa kitaabka iyo diinta ku dhaqan kara inay ummadda khayrka ilaahayna waafajiyo mid waxa leeyahay 13 November codkeenu waayo saasaa inoo ballan haddii Allah wada loo galaabo aad baa wanaagsantihiin warkeena wanaagsane berigiisa la yaabay badanow caddeyshiyo bahoo dhambeerka ku haysta ilaahay ha barbeede waar ila soo bixiyay xisbiga ucid ee xaafadda xidigta iyo axmed dhagax codkaygana waxaanu siinaynaa xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ha guulaystaanu leenahay ha guulaysta xisbiga ucid ha noolaado ucid taageerayaasha xisbiga ucid baanu nahay labada xaafadood baanu ka koobannahay qabyaalad waxba kuma doorane qabyaaladu ha dhacdo isugu yimi fagaarahan xafiiskan ucud xaafadda xidigta iyo axmed dhagax gaar ahaan xafiiska wuxuu ka tirsan yahay ugbaad dhammaan tayo waxaanu nahay ucid baanu nahay xidigta iyo xaafadda axmed dhagax waa taageerayaasha ucud baanu nahay ucud ha guulaysato qabyaaladu ha dhacdo odayaasha koofiyad baclayaasha ha dhacaan kitaabka ilaahay ninkaa yidhi waan ku xukumaya ha la soo raaca baan leeyahay dadka inta lusanay ha la soo raaco nin daacada weeyaan nin ilaahay yaqaano weeyaan nin ummadda u danaynaya weeyaan nin maanta somalilan xaaladday ku sugan tahay nin ka badbaadinaya waa injineer faysal cali waraabe ha noolaado xisbiga ucid ha noolaato faysal cali waraabana codkayaga iyo la wada garab taagana ilaahay ha siiyo dadka qabyaaladda ku shaqeeya ha waayaan waxaanu leenahay faysal cali waraabe waa mustaqbalka madaxweyne ee soo raaca guuriyo gobonnimaanu ha guulaysato faysal cali waraabe ha guulaysto abiyan ha guulaysto somalilan ha guulaysato ilaahay talada dalka haynagu guuleeyo ilaahay xaqeenna hayna siiyo ucud baynu nahay ucud codkaan la siiyo qof kastaa ucud taageera wuxuu daydayaa astaanta qof kastoo kaarka codaynta haysta waxa u iman doontaa warqadda lagu codaynayo oo ay halka sare ku taalla calaamadda xisbiga ucud ee 15 sannadood muddada ka badan aad ka qaadeen qof walba qalbin qalbigu leexanin ku hubso adiga oo oranaya bismillaahir rahmaanir rahiim allahu akbar kurida taasa lagu kala badinayaa taageeradiina iyaysa soo bixiina adbaadka u taagantihiin waxaad ku cadayn doontaan oo ku argoosan doontaan oo waxaad tii ku muujin doontaan maalinta la codaynayo qof walba adigoo leh bismillaahir rahmaanir rahiim allahu akbar kurid waynu guulaysanaa ilaahay baa ku kordhigaya waxaynu yeelaynaa madaxdeenu waxay ku maqan maanta madaxweyne faysal cali waraabe ku maqan degmada Laascaanood ee gobolka Sool madaxdii xisbiga madax badan baa halkan iman lahayd degmooyinka oo dhan baa sidoo kale looga soo banaanbaxaya ku maqan yihiin waxaanu anigoo ka wakiila oo guddoomiye degmada maxamed nooga idinka sidaa salaan qaaliya oo ay u sideen
dadweynaha reer maxamed mooge oo boqolkiiba 9 taageersan xisbiga ucid ha noolaato odayaashii naga tegay. allahu akbar waxay aad iyo aad niyaddaydu ugu farxaday sida wanaagsanee ficilka leh ee arrinta u waddaan ee xisbiga hawshiisa u waddaan aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa. anigoo xogayii guud ee xisbiga waxaan idiin sheegayaa maanta dadweynaha maxamed mooge ficilkii ay hore u soo sameeyeen ay xisbiga ku soo saareen maanta waxaa laga doonayaa inaad labalaabtaan. xisbiyo badan ayaa hadhay doorashadii hore ee golaha deegaanka ee ururadu tartamayeen. waxaa ku guulaysateen inaad noqotaan dad xisbigoodii mar kale soo saara. maanta waxaa jira borobagandaa jira. borobagandaha iska ilaaliya. xisbigu waa xisbi quwad leh, waa xisbiga ugu daada weyn asxaabta. nin waayo aragina uu horkacayaa. yaan been laydiin sheegin. codkiinna diyaariya. insha allah waxaynu rajaynaynaa sanadkan guul baynu rajaynaynaa. xisbiga waa ogtihiin xisbigu wuxuu gelayaa tartan adag. waxaa loo baahan yahay gaar ahaan dumarka iyo dhallinyaradu inay hawshaa u diyaargaroobaan. waar faysal baynu garab taagannahay, ucud baynu garab taagannahay, cid kale isgarab taagi mayno. laynoo faani maayo, innagaa faanka leh. hasaasaynu isku ognahay. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. maanta awooddoodii iyo quwaddoodii muujisay aad baad ugu mahadsantihiin. xaafaddani xisbiga cadaaladda iyo daryeelka loogama sheekaynayo xisbiga cadaaladda iyo daryeelka 17 sano soo shaqaynayey, codka way siinaayeen. waxaan leeyahay labada xisbiye kale maxamed mooge waxba uma yaalaan. warkaas waa war cad weeye, ha ku habsaamina. degmada maxamed mooge waa degmo runtii aad u ballaaran oo xaafado ballaaran ka kooban. degmada shacab badanna ay ku nool yihiin. xisbiga cadaaladda iyo daryeelkuna wuxuu codkiisa meelaha ugu muhiimsan ka doonaya waa maxamed mooge weeyaan. waxaan leeyahay wax wanaagsan baad samayseen haddaad tihiin degmada maxamed mooge. annaga idinka soo war habsaannay. runtii waxaanu soo maraynay degmooyinka kale, laakiin waxaan leeyahay degmada maxamed mooge codka waxa inaga xiga maalmo yar oo koobanba inaga xiga. waxaan leeyahay yaanay been idiin sheegin. qaar soo dhundhuumanaya waddan iyo kulmi ayaa dacaayada dadka ku dhex furay. waxaana ilaadeen xisbiga cadaaladda iyo daryeelka inta murashaxa madaxweynuhu ma tartamayo. waa beenaalayaal weeyaan. waxay inaanay cod ku haysan maxamed mooge iyo maxamed hayle iyo degmooyinka kale. markaasay islaadeen dacaayad fura. waxaasi wax laga qaadanaya ma aha. waxaan leeyahay shacbiga ku nool maxamed moogow, guryaha iyo xaafadaha garaaca oo waxaad samaysaan codkiina yaan la iibsanin. kaararka ilaashada xitaa waxay samaynayaan inay kaararka jajabiyaan oo codkiina ay lumiyaan bay samaynayaan. niman maalaysanaya oo muhurima kale dadka ayaa meelaha warwareegaya. waxaan leeyahay kaararkiina ilaashada. dhalinyartu kaararka ha ilaashato. waxa wax lagu gaara waa mustaqbal iyo horumar. ninka maanta doonaya inaad codka siiso uu kursiga kugu fuulo adowtoorada uu kaa gabado waxa la yidhahdo wuxuu kuu qabanayaa ma jirto. laakiin xisbiga cadaaladda iyo daryeelka sidaa aad maanta u soo baxdeen udiyooda weligiinba codka inaad siinayseen ayuu adowtoorana aad madaxtooyada u geli doontaan insha allahu tacaala. waxaan leeyahay labada xisbiyo oo ku soo amayaamina degmada maxamed mooge runtiina codka maxamed mooge yaala uxud baa iskale
amba dhinta waxaan leeyahay shacbiga maxamed moogow wax wanaagsan baad samayseen xisbiga cadaaladda iyo daryeelkana meel wanaagsan baad kaga suntantihiin waxaan leeyahay insha allahu tacaala 13 Noofembar iyo madaxtooyada haddii ilaahay idhaahdo saasaan isku ognahay shacbiga maxamed moogow ilaashada codkiina ilaashada waxaana samaysan haddii ilaahay idhaahdo maalinta arbacadana waxaynu ku leenahay beerta xorriyadda inay ciiddu dhaqaano ilaa iyo madaxtooyada beerta xorriyadda bulshanto ayaynu doonaynaa haddii ilaahay idhaahdo